waxaan ahay horta macallimiintii hore magacaygana maxamed muuse la yidhaa barsho wanaagsan macallimiintii waa beri baan ahay halkan ka dhigi jirtay waxaan maanta markaa halkan isu soo taagay inaan kelmad keliya ka idhaahdo kelmadda waalidka iyo macallinka iyo ardayga xiriirka had iyo jeer assalaamu calaykum macallinka iyo waalidka iyo ardaygiisa waxaa waajib ah in xiriir dhow ka dhexeeya ama mid gaaban isogaansho ah haddaba macallinka iyo waalidka iyo ardaygiisa saanu gacantiisa uga bixin ilmuhu si ilmihiisu u noqdo ilmo tayo waxbarasho leh sida awgeed waxaan idinku bogaadinayaa ama aan idin faraynaa inaad yeelataan wada shaqayn fiican si ardayga ama ilmahaagu u noqdo mid tayadiisa waxbarasho aad u fiicnaato markaad saddexdiinu isku xidhantaan war ilmahayga halkuu maraya war ilmahayga aqoontiisu sida tahay maanta ma yimid caafimaadkiisa ka warrama waxyaabo badan baa meesha laakiin haddii iga geeyo soo qaad ay noqoto foundationkiisa xumaanaya meeshana waa meel foundation lagu sameeyo aqoonta ilmaha yar lagu soo kaabo waa goob waxbarasho waa goob aqooneed si aad isla ogaataan heerka waxbarashadiisa macallinkan la hadlayaa macallinka waxaa looga baahan yahay inuu la socdo aqoonta ardaygiisa had iyo jeer heerka uu marayo waalidkan la hadlayaa waalidka waxaa looga baahan yahay isna sidoo kale inuu si fiican habeenkii marka ilmihiisa yar soo rawxo inuu ogaado heebka waxbarashadiisa uu buugiisa baaro oo uu eego caafimaadkiisa wax walba si maasha Allah ardayguna uu noqdo mid waxbarasho diyaar u ah had iyo jeer oo dee u bisil laakiin ilmo yar oo hurda hadduu yimaado waxba dee baran maayo maalinta uu hurdo ama uu yar xanuunsanayo guriga ayaa lagu reebaa maasha Allah kelmadeedu saasan waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay baa mahad leh bas maasha Allah waan mahadsantiin